Weli ma isweydiisay sababta magaca ambulance lagu qoro si gadaal ah marka uu ku qoran yahay afka hore ee gaariga gargaarka degdega ah? Waa su'aal xiiso leh oo dad badani aysan ogeyn jawaabteeda. Bal ka waran adiga oo waddo iska maraya, haddii si lama filaan ah aad u maqasho dhawaaqa ama codka ambulance, kadib waxaad isku dayaysaa inaad eegto muraayad-haadkaaga si aad u aragto halka uu ka imaanayo gaariga dhawaaqaya. Haddaba maxaa dhacaya? Haa, qoraalka ambulance wuxuu si sax ah uga muuqanayaa muraayad-haadkaaga, taasoo sahlaysa in darawalku isla markiiba uu fahmo in ambulance ay ka dambeyso ama ayba daba socotaba. Laakiin sidee tani u shaqaysaa? Aan si fudud u sharaxo. Muraayad-haadka ama rearview mirror ee baabuurta waxay rogaan qoraalka. Asal ahaan, muraayaddu wixii lagu fiiriyo way rogtaa, wixii rognaana way saxdaa. Marka haddii qoraalka oo saxan lagu fiiriyo, wuxuu noqonayaa oo ay ka dhigaysaa mid rogan oo la akhrin karin. Haddii qoraalka oo rogan oo la akhrin karin lagu fiiriyana, way saxaysaayo waxay ka dhigaysaa mid saxan oo la akhrin karo. Tani waa xeelad cilmiyeysan oo qayb ka ah naqshadeynta gaadiidka gurmadka degdega ah. Waxay ka caawinaysaa darawalka inuu si dhaqso ah u aqoonsadaan ambulance-ka una baneeyaan jidka iyagoo ka eegaya muraayad-haadkooda ama rearview mirror. Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah xaaladaha degdega ah, halkaas oo ilbiriqsiyo go'aamin karaan nolosha qof bukaan ah. Daawade, marka xigtay aad aragto gaari ambulance ah oo waddada maraya ama ku daba socda, dib uga fiiri muraayad-haadkaaga. Magaciisa waxaa loogu talagalay in si fudud loo akhriyo, in qof kasta uu si dhaqso ah ugu jawaabi karo marka ay xaalad degdeg ah jirto. Haddaba, adiga ku nafisay dadka committee-ga, su'aashu waxay tahay: horey ma u taqaanay farsamadan mise hadda ayaa kugu horreysa?